kale dadku Swediyaanna way jirtaa oo ninkan qabiilkiisu wax ma u tareen ninkan qabiilkiisu wax u tareen ninkan haddii uu qabiil kale ahaan lahaa waxa dhici lahayd marka ninkan waa uu la qoslayaa anoo banaanka joogo jeegadu ima jarno ima qurux badnaa waa uu jeego la soo jartay taab ma fahmin midna ilaawin qof isagoo dhiig yacab dhashay ma jiro haddii uu qofka ibnu aadamkii hal mar qof dilo oo dib yaraataa midda aan la yaabay waxa weeyaan mid dhakhtar ayaa meesha la soo istaajiyay waxa lagu dhahay gabadhan markii lagu keenayay diraceedu muu gubnaa mise ma gubnayn wuxuu ku jawaabay ma garanayo baliirdiisa fiideen dirac ma dirici gubtu ahaa ma dirac marka kadib loo galiyo waxa ma xasuusto arintii marxuumad luul ayaa hadana soo laabatay marka hal mar waxaan rabaa inaan waxyaabo muhiim ah ka dhaho meel xaq iyo xuquuq ay ka jirin marka lagu dhaho waxba lagaaga raadinayaa ugu meesha waxba kama soo socdaan adiga in daawanay waad ogtahay arintan marka Soomaaliya joogtid ee shaqo raadsanaysid qabiilkaaga u baahan tahay haddii uu meeshaas qabiilkaaga kaaga sii horeyn ama qof aan laga aqoonin shaqada ma helisid waxa doontid ahaw maad ahaatid qof imtixaankiisa wada ee keeni jiro oo xariif ahaa oo loo baahan yahay haddii aadan meesha qofku ogeyn uu qabiilkaaga ku joogin meeshaas waxba kuma yaalaan qof aan waxba soo baran oo meelaha laga keenaya meesha la keenaa adigoo wax soo bartay oo door iyo 10 sano ay ka soo khasaareena waxa lagu dhihi adiga tahay horta qabiilka mihiyo ma shahaadada haysatid taawaskooda ognaay haddaad gabar tahayna waxay ku xiran tahay inaad shaqo heshid ninka xafiiska fadhiya suudka xidhani inuu ka helo haddii uu ninkaasi ka hela gabadha soo doonata shaqada uu macnaha wax walba kaga faa'iideysan karo shaqada uu siinaa si uu hadhow wuxuu rabay uga helayadana macnaha waxa la dhahaa isii aan ku siistay marka ninka meesha fadhiya toos buu gabadha ugu dhahayaa anu shaqo aan ku siini laakiin hadhow aad maxaan ka helayaa macnaha dee maxaa faa'iido soo ciyaar arrintaasna way jirtaa wali markuu Donald Trump lahaa erigan Somalia no government no safety no police no nothing anu qalad baan u haystay laakiin kadib markaan wax walba u fiirsaday waxaan ogaaday Donald Trump inuu been sheegin oo eriyadana run ahaayeen dadka qaar waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan arrintan marxuumadda maxay aad ugu soo laalaabataa macnaha maxay la dhamaan laadahay macnaha bilooyin baa laga taagan yahay waxaan maxaa loogu kala yaaci lahayahay marka midda jawaabteeda anaaba haya dadka qaar in loo soo dhiciyo waxoodii waxay qaadataa sanado marka qaarkood macnaha adduunyada horumartay macal waxa jira dad jeel ku jira oo wali macnaha go'aan laga gaarin marka taa la yaab male way soo laaban doontaa hadana way soo laaban doontaa muhiimadu waxa weeyaan in xaqi la helo su'aalkooda ku isweydiiyay baa jirta oo ninkan dilaamiya mise dilaam maaha anu diris lahaantayda hadaan ka hadlo boqolkiiba 99 ninkan dilaa waaye boqolkiiba halna ninkan dilaa maaha mid kale dadku Swediyaanna way jirtaa oo ninkan qabiilkiisu wax ma u tareen ninkan qabiilkiisu wax u tareen ninkan haddii uu qabiil kale ahaan lahaa waxa dhici lahaydba mar hore in la toogan lahaa oo macnaha waxba la isweydiiyeenba ninkan saa muu sameeyo muxuu la gubay iyo yaa huba iyo waxa in aan la isweydiiyeen baa dhici kartay haddii uu qofkaan qabiil kale ka dhalan lahaa marka qabiilka ninkan waxba u taray oo waa waxa halka soo gaarsiiyayba uu wali la nool yahay bal waxa jira inaad ogtiin mooyaane dad la yiraahdo waa la dilayaa oo dadka lagu bedelo dadka lagu bedelayna waxa weeyaan dad jeelasha ku qurmay oo dad soo sheegan waayeen waa la soo qabanayaa ay baa la tooganayaa waxa lagu leeyahay qofkii dambiilaha ee saxda ahaa baa la toogtay arrintaasna way jirtaa dadan ogeyn hadda ogow mid kale dadku is weydiinayna way jirtaa waxa la dhahay ninkan uu qurux badnaaday caruus buu eekaaday midda anigu baan is weydiinayaa jawaabteedana oo u baahanahay laakiin midda aan iga jawaabay waxa weeyaan boornida dadka qaar waxa lahayn ninkan uu naaxay stressku dadka qaar uu naaxsiiyaa oo waa sida imka rabadaan oo kale dadka qaar way ku naaxaan dadka qaar way ku dhuumnaadaan stressku waa saas oo kale dadka qaar way ku dhuumnaadaan dadka qaar way ku naaxaan marka waxa laga yaabaa ninkan inuu stress hayay uu ku naaxay laakiin midda aan is weydiinay waxa weeyaan ninkan jeega u jaran waana run uu qurux badnaaday midda kale iga sii yaabisna waxa weeyaan uu ismaal garaynaya waxaan xasuustay nin intuu bangiyo dhacay ninkaas wax fiican buu sameeyay laakiin sidee bangiyo dhacay lacagtii buu dadka masaakiinta u qaybiyay kadib markii la xidhaayay uu qoslaay sababtoo uu qoslaay waxa weeyaan ama uu ismaal garaynay sababtoo uu ismaal garaynay waxa weeyaan wax fiican buu sameeyay ku faraxsanaa marka ninkan waa uu la qoslayaa anoo banaanka joogo jeegadu ima jarno ima qurux badnaa waa uu jeego la soo jartay taab ma fahmin midna ilaawin qof isagoo dhiig yacab dhashay ma jiro haddii uu qofka ibnu aadamkii hal mar qof dilo oo dib yaraataa wax walba oo la sameeynayo waxay adag tahay marka ugu horeysa haddii uu qofku qof dilo mar labaad inuu dilo way u dhib yar tahay haddii uu qofku qof kufsado mar labaad inuu kufsado way u dhib yar tahay haddii uu qofku tuug noqdo inuu mar labaad waxado way u dhib yar tahay marka mar walba marka ugu horeysa baa adag mooyaane laakiin qofku haddii uu mar labaad sameeyo mar saddexaad sameeyo qofka waa ku daayay oo waxa hore loo dhahayba more practice makes perfect haddii aad wixii ku celisid
easy bay ku noqonayaan marka qof waxaan ku dhashay ma jiree qofku marka ugu horeysa hadduu ku guuleysto mar labaad iyo mar saddexaad kama cabsanayo midda aan la yaabay waxa weeyaan mid dhakhtar ah ayaa meesha la soo istaajiyay waxaa lagu dhahay gabadhan markii lagu keenayay diriceedu muu gubnaa mise ma gubnayn wuxuu ku jawaabay ma garanayo bal yarigiisa fiidoon diracay wadatay wax kale dirac ma dirici gubtu ahaa ma dirac marka kadib loo galiyo waxa sida kula sheegi kara la xasuusto ma xasuusto haddaba dhakhtarka garan waayay qofkii loo keenay diriciisu inuu gubnaayo in kale muxuu meesha ka soo doonay maba garanayeen maxaa ka soo doonay ma garanayso waxba midda kale ninkan shaqadiisu waa cabsanaya ma naftiisu waa cabsanaya mise wuxuu leeyahay buuqan ayaan rabin bayna aanu ka sii hadlo sababtoo ah qof buuq loogu talagalay meeyay sababta uu macnaha sidan ugu jawaabay maxay tahay anigu weli ma fahmin isagana ugu dambayn nin horta aynantiisu gaarin ma geeriyoodo haddii aynan taadu gaarin ma dhimanaysid marka ilaahay un baa garanaya ninkan meesha u dambayn doonta hadday meel fiican tahay iyo hadday meel xun tahayba dadka gabadhan dhalin waxaan ku leeyahay wallahi waa dadaasheen sababtoo ah meel fog baa dadka la soo gaadheen waxaan saa u leeyahay waxa weeyaan dad waxaa jira waxyaabahan wax ka daran lagu sameeyo oonan helin chance ay meelahan oo kale dadka la soo gaadhaan dad baa wixii lagu sameeyay cidna ayna ka hadlin dad baa hoog ku jira hadda aan hadlaayo dad baa hoog ku jira dad waxaa jira la iska toogto cid ka hadlaysa ma argaysid dad waxaa jira waxyaabo badan la iskaga sameeyo cid ka hadlaysa ma jirto marka idinku waa dadaasheen insha allahna khayr bay noqon doontaa marka aad baa ugu mahadsantahay oo shay video waa daawateen videogan fadlan sii share gare like na saar adiguna ra'yiga ka soo dhiibo arrintan sidoo aragtaa adigu